marka koowaad waxaa meesha ka baxay aragtida ahayd in maaragtay gabadhan ay scam tahay ama wax been ah ay tahay oo qofkiioo nool ah baa soo war fadhiistay. marka labaad kalsoonida ka xigtana waxa weeye hooyadiis bay wada kulmeen. marka saddexaad aabaheed bay wada kulmeen. marka ninkan almost wuxuu aaminay qofka uu la kulmay inuu yahay qof perfect ah oo qof fiican ah, qof maaragtay mustaqbal la wadaagi karo, qof dhalinyaro ah oo daacad ah inuu yahay. marka shakigii waa ka baxay. marka maalinta ugu dambeysay waxaa la isla soo horfariistay, okay what's next, guuraan rabaa. okay guur waa isguursanaynaa. wuxuu yidhi $5,000 ayaan u dhiibay maadaama qof kanada ay ka timid ay tahay. waxaan ku idhi walaalay haddee 5,000 hoo waxaa ku dari kartidna ku dar, because gabdhaha maogtahay gabdhaha dibadda ka yimaada iyo kuwa halkaana waa kala duwan yihiin. gabdhaha dibadda ka yimaada haddaad waxay yaqaanaan wax wada qaybsiga. adiga raggii waxay ka tustay meeshan cidla aheeday gabadhaanayta inay kufsadaan. dhooray ahaayeen inay gabadhan kufsadaan, wayba meeshay fadhiyaan ay ag martay, wayba ka tustaba gabadhi ha ka daba tagaan ha kufsadaan. way silciyeen, gabadhi way baxday wallaahi, way iska waxaa la yidhahay iska sii dhadhacday xaafadii u socotay tagtay. markay tagtay raggii mid ka mid ah yaa xaafadii yimid, gabadhii kufsaday xaafadii ay joogtay uu yimid. guess what wuuna ogyahay gabadha inay joogto. ma ogo maxaa sidii leedahay xaafadda sababtu u tagay maxay tahay? raal noqon iyo dhiira family waay, abtigaad waay. oh my god like literally abtigaad waay, walaashiis ka weynaa dhashay laakiin baadiye ka imaaday, weligiis aliisi muusan arkin. wallahi aniga to me ma aragtay aniga wallahi waxaan qabaa every rapist inay ma aragtay kurka laga jaro literally. just say like literally any person oo gabar rape gareeya, gabar xumeeya, inuu punishmentigeeda maro. absolutely 100%. anigana I agree with you totally 100%. ani iyada hadda waxaa dawlad amla u hadloonahay. well wallahi no I agree with you 100%. it's not like easy ma ahan qofkanito like no means no literally meel kasta ku qoranta meel kasta laga dhahaa rape easy ma ahan. ilaahu ma hata familkaada ilaahu familkaada yahan ilaahu qof wiliga aragtay ilaahu cirka qofka soo dhaca. no it's not allowed. adigana haddaad if you have those intuition xitaa dhakhtar aad literally because I know some people will be like oh you know maxay sheegaysaa. no go to a doctor dhakhtar. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. asxaabtu waa salaamantihiin, waa barnaamij kale soo dhawaada oo xiisiisa wata insha allahu tacaala. barnaamijka maanta wuxuu ku saabsan yahay sheekooyin ama qisooyin dadka inay la soo wadaageen, asxaabta inay la soo wadaageen. barnaamijka waxaa nagu soo kordhay walaalkay Ibraahim Muuse Dahraan, waad garanaysaan u malaynaa. Facebook is very famous, dad badan ayuu haystaa, ma fahanteen? asxaabtaydan waxaan rabaa xag inaad ku shamuuntaan oo aad markino follow idinka dhex arka insha allah meesha. bal qisooyinka dadka ay nala wadaageen yaan rabnaa xabad inaan u dul istaagno, weliba sii falanqayna wax yarna iyo sida ay nala tahay. adinkana waa idiin daynaynaa dhanka commentiga waxay idinla tahay laftirkiina. Samiro adid uma baahneed introduction, dadka way ku yaqaaneen, marka soo dhawaada. mahadsanid Ibraahim. barnaamijyada sometimes qabataan baan daawadaayo adoo ku bilaabaya. Samiro adiga lagu soo dhaweeyay maarta. adiga soo dhaweeyay maarta. yani waxa way waqti hadda waa lagu bartay waaye. iyadana intaas sugaysa inaad bulshada taabto. maasha Allah. Ibraahim haye sheekada qisooyinka maanta ina barnaamijka nala wada waaye, qisooyinka noo soo qabo. Suwayba ma san tahay asxaabtaada iyo Samira ma ilowsani dhinacayga ay joogtaa. maalin wanaagsan. programkan inaan almost ka soo qayb galo waa ku faraxsanahay. waana noo imaan doontaa, kan kaliya ma noqonayo insha Allah. qisooyinku qaybna dad baa nala soo wadaagay, qaybna muxuu ahaa waxaan isleeyahay inaan maaragtay aniga waxa ama Ibraahim ahaan aan hayo baa laga yaabaa shakhsiyadeyda inaan ka waramo ma badnase. midaan aan rabo inaan ka hadlo waa wax maaragtay magaalada Nairobi aad iyo aad maaragtay uga socda oo ku saabsan xagga dadka mobilka lagu dhaco oo maaragtay tuuganimada la xiriirta. marka nin oday ah oo runtii aan marka hore xiiseynayay inaan waraysi ka qaadno, laakiin ka xishooday baaqisadan ila wadaagay oo aan isleeyahay marna aad bay u xiiso badan tahay, marna way naxdin badan tahay. dadkuna waxay u noqonaysaa in ay maaragtay ay wacyigelin u noqoto oo ay ka taxadaraan. ninkan wuxuu sheekada iiga bilaabay, wuxuu yiri anigoo jooga Soomaaliya meel ka mid ah, we don't need inaan maaragtay magaalo sheegno. wuxuu yiri gabar baa isbaranay,
gabadha waxaan iska baranay buu yiri social media gaar ahaan Facebooka qaybta Messenger-ka baan ka wada sheekaysan jirnay kadibna waxaa dhacday buu yiri in gabadhii ay ii sheegto inay joogto Canada macnaha waxay ku shukansanaysay oo kula hasaawaysay inay Canada joogto hasaawihii dhowr bilood u qaatay waxaa lagu balamay magaalada Nairobi in la isugu yimaado waxay tiri Nairobi imaanaya aduu ma imaanaysaa marka wuxuu yiri ha dabcan waa imaanaya wuxuu yiri marka hore in waxyaabaan scam-ka ah inay tahay baan u maleynayay buu yiri waana sababta aan u codsaday inaan face to face aan ula kulmo oo aan is aragno wuxuu yiri Nairobi imid bise gabadhii sawirada ay soo dirtay iyo muuqaalkeedii uu isleeyahay waa iyadii gabar yar oo qurux badan maasha Allah ya soo jiidasho leh weli aan guursan sheegtay maaragtay xiise u qabta inay kula kulanto asaga isaguna nin dhalinyaro oo iska ganacsata ah golayaashan baarlamaanka ee maamul goboleedyada mid ka mid ah ayuu wuxuu ka yahay xildhibaan waa nin dhalinyaro haddana ganacsada ah oo nin adigu yaraanta ku shaqaystay gabadhii markay is arkeen 2 days kama soo wareegeen Nairobi markay ku wada kulmeen waxay tiri hooyaday ayaa waxay ku samaysay qado martiqaad qadaah bay ku samaysay hooyaday mid ka mid ah hoteelada magaaladan ayaa lagu casumay waliba hotel ma ahan waa meel ay degan yihiin sida markaas uu la kulmayo asaga gurigii markuu tagay hooyadii qada fiican u samaysay qadada madaxda loo sameeyo meesha suuq qada fiican ku helay hooyadu la sheekaystay waqti uu la qaatay mar walba ninkan kalsooni baa galaysay maalinta ku xigtay waxa la kulansiiyay aabaheed bay la kulansiisay oo ay moolashan BBS Mall kale ay ku kulmeen halkaas oday ku shaahiyeen oday kaftan badan gabadheeda hadda naga soo doonto kusinayna oday isfaan isku barteen marka koowaad waxaa meesha ka baxay aragtida ahayd in maaragtay gabadhan ay scam tahay ama wax been ah ay tahay oo qofkiyo nool ah baa soo farfadhiistay marka labaad kalsoonida ka xigtana waxa weeye hooyadiis bay wada kulmeen marka saddexaad aabaheed bay wada kulmeen marka ninkan almost wuxuu aaminay qofka uu la kulmay inuu yahay qof perfect ah oo qof fiican ah qof maaragtay mustaqbal la wadaagi karo qof dhalinyaro ah oo daacad ah inuu yahay marka shakigi waa ka baxay marka maalinta ugu dambeysay waxaa la isla soo farfadhiistay okay what's next guuraan rabaa okay waa isguursanayna wuxuu yiri $5,000 ayaan u dhiibay maadaama qof Canada ay ka timid ay tahay waxaan ku iri walaalay hadda 5,000 hoo waxaa ku dari kartidna ku dar because gabdhaha ma ogtahay gabdhaha dibadda ka yimaada iyo kuwa halkaana waa kala duwan yihiin gabdhaha dibadda ka yimaada haddaad waxay yaqaanaan wax wada qaybsiga bay yaqaanaan laakiin gabdhaha halkaana waxa weeye intaas kabtan ayaga adiga soo doonatay wax walba korkaaga waay marka 5,000 u dhiibay wuxuu yiri inta ku dari kartid ku dar guurkan waxaa noo diyaarisaa aqalgalkii hawshii intaas halaga dhigo waayahay tiri galabtii uu lacagtaa u dhiibay maqribkeedii buu fariin u diray ma ka soo jawaabayso habeenkii fariin u diray ma ka soo jawaabayso subaxii fariin u diray ma ka soo jawaabayso maqribkii dambe fariin u diray ma ka soo jawaabayso wuu cararay gurigii uu tagay wuu garan karaa guriga markuu tagay wuxuu arkay gurigii oo la nadiifinayo oo cidna joogin joogta mare antii meesha ka shaqeynaysay way fahmayaan dadku saan filayo Nairobi u badan dadka guriga ka shaqeynayay buu yiri aaway dadka markaas waxay dhanaanay shaqada dadka waa bixinay dhanaanay guriga nadiifina dadka gurigan ayaga lahaay waxay leeyahay reception wixii information reception ka weydii ninka xildhibaanka ahaa odaga ah waa baxay reception ku tagay wuxuu yiri aaw dadku waxa leeyahay dadkan 7 days bay kireysteen guriga ba furnish apartment iyo guriga alaabtan guriga ayaga ma lahayn baa leeyahay guriga sheekh dadkan guriga gogolan way gurigan oo diyaarsan way kireysteen 7 beri waa dhamaatay waana baxeen ninkii waaga ku bari macnaha hooyadu been bay ahayd aabuhu been buu ahaa xataa I think so hadda markaan ka sheekeynayo oday hooyada iyo aabaha ila kulansiinaysa idinka xataa runa moodayn laakiin ma aha hooyadu been bay ahayd mashruuc bay ahayd maba dhalinba aabuhu been buu ahaa 5,000 la qaybsaday waxa weeye 500 ama 400 waxaan u maleynayaa guriga kiridiisa iyo 7 beri ah iyo qadada odayga loo sameeyay khalaas
intaas haddii laga jaro 4,600 ama 4,500 ay kala qaybsanayaan saddexdaas qof gabar yar oo qurux badan oday waa yeela maamo hooyo aabe ku matalayaan Nairobi ku dhex fadhiyaan marka waxa weeye ninka odaga ahaa meel aan wax u raacdo waa garan waayay buu yiri almost wax aan sameeyo sawirkeeda laakiin wuu hayaa sawirkeeda wuu hayaa wax walba wuu hayaa sawirkeedii de way ku tala gashay waxay ku tala gashay waa marka waan weydiiyay waxaan ku dhahay maxaad u soo bandhigi weysay oo aad maaragtay social media social ha marka wuxuu yiri maxaa shanteeda kun ma ii soo laabanay dan social media soo dhigo shantii kuna isaga reer miyuu lahaa ba ii soo laabanaya ma weydiin laakiin sida u malaynayo maya horta hay Samira waa ka dafraale hooya waa fikraysa u jeeda hadalka dhileeda soo wadaa ka dhaxgalo marka horta yani scamkaas waa another level waxaan dhihi karo يعني ومقلي جري جبر ما أركنه نين ما أركنه العجنة كقاعدته ده واحد إسكا عادي بس كم قلنا لكن شيء كذا قريبة لكريستو أبي هويا لما تلقوا تازو عن إيه كراقة بروفيشنال وايد ضد ما أركنه حرفة صفي عن ويا كانوا عن نينك هلان يعني واحد لياب له even إن سقابك وأكت جرينا يا دكتور صحكوا في أي فيلم هم بيني أكت جرينا أنت amazing وويل كان السيد وقعت إني أرنتان رونتاي وواحد عجيب هو صوته مركو أبليد بوها لكن حقيقة أنا لياب له يعني قفك وسؤال سويدين هم حاكوا قصبايا إنه all that سيدا شيء قبل قروح بدن واي نيني به اللي كرتاف في عن أما دقالة في عن هيست أما يعني دقالة بدن يوصل هيسن لكن وحكوا كلفة يعني إيمانك إيو ضدني ماضي إيو شرفتي إيو عزدي إيو الله كبقي إيو يعني محمد صادق أي أنت صورنا ميل دقاي أو ده يوم متقنا هنقولي يعني إن أطلب صدق مركا I don't see يعني قف بني آدم وحو أنت صورنا وأسمع العقد just العقها ويلك عشان تكون وياك بحدا لكن نمر بدأ ما يقف واي وحكوا سؤال وحير واي so next تاجت تدنا يونقنا قفك كلا أي تاجت قرينا يا إبراهيم هذا كرتيني دوما كم القصة يا مس الرجال واي والقصة ما طبعا أيقنا صح معقول نك جور كدوما كالقصة ما يا مركا هاي سميرة والله it's very interesting that's a new fear unlocked new fear ولكن رجع هذا أنا اللي بدتك يقول حرن رجع وبضانه أنا إسئلالسين وما أعرف إنه هدي بجوري أو فك اللي لقيت جاي جوري رن بفك هنا برن هو يفكر وحاجة ويل هذا كور يجلس وحريري قدر ويل كأصحاب أنا هاي then وحده ولا عليه معاني قبر باشو كان صدق قبل ودمدان يوروب mid kamid ah joogta wuxuu yiri gabadha waa shukaansada waa ka helay guuran ku heshiinu dhahay kaale arag walaalkeeda ila hadalshiisu dhahay waalidkay waxay joogaan dhahaday tiraahdo Soomaaliya walaalkeeda ila hadalshiisay in Facebook waan iska xiriirnayna kadib WhatsApp numberkeeda is run way gabadha xagee joogta so wuxuu yiri gabadhi marka meherka iyo wixii aan qalqaalna walaalkeeda ka doontay lacag aan u diro dhan waxay dhahayaan lacagta waa soo socdaay in shopping qof dhan oo xaaska ku soo socotay waxa u dirtay lacagtii wixii dhan aan diray oo ma fahanti markii dambe sida hadda adiga sheegayso kor telefoonka yaaba qabanay oo isma arkin in messenger ka message ugu dhaaf in WhatsApp ka message nakata lacagtiisi saasay wiilka ay ku burburtay laakiin wiilkaas waxay u dhaawacday yani waxaan dareemay inuu jacayl dhab u qaaday psychology يعني aad bay u dhaawacday ma arkino markuu ku sheegay xitaa sidoo ugu soo celcelinaya ka dareemaysa yani it is like inay ku noqotay filan waa ay ku noqotay marka dabcan dad badan oo saas lagu dhacay jirta laakiin waa waxyaabaha soo kordhiyay social media waa waxyaabuhu soo kordhiyay ma ogaan karto qofkii fake ah ma ogaan karto qofku waxaan daacad ay ka tahay ama daacad aysan ka ahayn midda kale hadda sheekada adiga aad sheegtay Ibraahim شك وحي يجي جرا قبل إني حتى كان ذكي ما دو أمم لينا. مو كمان ما نبى. يا أساس كو قرن ما بالله ما أهن كما أوصل كما يسن إيمان كان absolutely كما يسن إيمان because of وحن ويديي أنتي عاد حسابه بود تشرتين وهذا شو كان سنة سين مرنا فيديو كول مكودا شيء كيستين ويرها لكن يدو جوري كتشوفته. نمبرنا. يدو جوري like نمبر ولا سمستها. ولا سمستها. نمبر is easy. نمبر كندا أمريكان كا. أنا كان جوا سمستها. أوكي. لكن عجيب. لكن ورقة بنا كل. قبل I don't know. You can tell قف مركو كندا كيماذي. I don't know. أصل مو كدري من مياني كندا كيمانين سمو دبراعين بالشكل هذا هذا لمبركي مربع هدي صوركي يموقالك أي شيء. بدنا تتصاصي فيريان صوركي يموقالك. إن شيء حجرت قبل إن لو ذاكتي شلي سوق جارسيسي. إن فكت عضا اسكو مقلناي.
gabadha waxay tiraahday waa halkan ay ka dhacday qisada gabadha waxay tiraahday nin baa isjeclaanay ninka waxay tiraahday cideena iima ogolayn inaan guursado gabadha gabar iska ganacsata waaye waxay tiri ninka adeeg calay kulli xaal aniga ku madax adeegoo guursaday iyagoo nacamti dadkayga ay dhahay ninkaan ma fiicno yaa waxaan dhahay tiraahday may waa jeclahay jacaylka wax walba ka weyn love is everything camal marka sidii aan u guursaday tiraahday waa isla degnay tiraahday bil iyo bar ma tirmis laba bil iyo bar markaan isqabnay ninka warqadaydu siiyay waxaan dhahay maxaa dhacay marka uu warqada uu ku siiyay waxay tira wallaahi ma ogiye tiraahday ninka lacag buu haystaa ay tiraahday nantalin faqri ma ahay dhahday laakiin markii mataqana aan wada joognay waa inaa weydiisay biilkii amti garashada dhan ma lahan amti inuu responsible yahay biilkii inaa weydiiso wax walba aa weydiiso kaaga darnay tiraahday markaan guursanay aniga ganacsada ahay tiraahday markaan guursanay tiraahday waxay dhahay tiraahday lacag ma meel iiga xanibane xoogo wax ku dar yaa mujida ibraahim oo sheekada marka anaga naftirkeena wax ku darsashada waa naqaanaa marka dibadda kaliya ma aha marka gabadhu waxay tiri sidii baan lacagta aan ku bixiyay oo aan mataqaanaa ninka isku guursanay kadibna way soo furay dhahday ilaa haddana wuxuu igu furay ma aqaan sidoo kale waxaan ku ballanay tiri marka aan ismehersanaynay like maxaa la dhahaayo inuu xaaskiisa u sheego xaas ayuu leeyahay hayuu igu yiraahda laakiin ballantan wuu ka baxay marka waxaan weydiiyay dee ninka waa isjeclaanay cidiina uga soo go'day waa guursatay aa tiri haddana at the same time wax badan maydan wada joogin hal bilay bar iyo laba bilay bar waxay dhahday ma aqaano yaan wada joognay saasay tahayna lacagtaada xitaa si isticmaal arooskii wax dhan lagu dhigayo marka waxay tiraahday like ma garanaysaa ma aqaano waxaan sameeyey ma weydiisaan dhahay waxaa samaysay maya dhahday because waa la yaabay dhahday mucjiso igu noqday marka gabadha marka ila hadlayso waxaan ka dareemay like in ay walwalayso like ninka inay jeclayd laakiin ninkii ka tegay dadkeedina dhinac ay ka leeyihiinoo you know waxaan kuu sheegaynay at the same time waxay juhdiga gelisayna uusan miro dhal noqonin oo bilooyin uu ku ekaa so then aniga kulley advice baan siiyey you know markaasoo kale waxay qaban kartay qofka markuu xaaladaasoo kale ku jiro inaa blame garayso dhahdeed you know aniga waxaan sameyn waxaa waa like marka hore haddii waalidka kuu sheegeen maxaa uga go'i weyday haddii saas lagu dhahay way fiican tahay haa laakiin qofka xaaladaas markuu ku jiro maba deganaba maskaxdiisa so waxa ugu yaro samayn karta waxaa waaye everything is okay waxaan ku dhahay qadarta ilaaha uu qadar wax ma ka bedeli kartaa maya maalinta xabiib biyo aheedaa lagu qoray laakiin waxaa waaye lesson 10 aad wax ku baratid oo mataqaanaa hadda kadib aad uga fiirsato talaabada aad qaadayso waalidka ahaa jooji bay ku dhaheen laakiin meeqa annaga waalidka waxay ka joogna dhaheen aan samaynay oo qaarna inoo wanaagsanaadeen qaarna ay xumaadeen marka waxaan dhahay just take it easy marka waxay tiraahdo wallaahi billaahi dhahda waa habaaraya dhahda ha habaarin baan ku dhahay laakiin habaarka naftirkiisa sometimes anigu baa dib iskugu noqday ma aha sometimes ka afka ka tiraahdo marmar qaar qalbigiyaa ka dhahaysaa oo waxaa dhahaysaa inta qofka saas ii galaa qofka saas igu sameeyaa marka gabadhaas shalay qisadaas nala soo wadaagtay maxay ku tahay so let me get it right gabadhan ninka ilaa goormay taqaane su-aashaas maan weydiiyey okay so ninkan ay baratay familkeeda u diideen naag buu lahaa still way ku yeeshay wax bay ku darsatay guurka and then waa xumeeyay after 2 months uu ku booday damn that's very traumatizing lakin I don't know nimanka 50-50 what do you think about it yani haddii loo guursanayna wax ku darsatid wallahi de waxay ku xiran tahay umaleynaa qofkaas aad wax ku darsanayso qof seewa yani qof isku hubtid miya haddii aad u jeceshahay oo isagana aad uu ku jecel yahay haddii wax la'aanta la iskuma naco haddii haddaa waxaysa haddaa contribute garaysid gurigaaga unbaa you know contributionka it's not like qasab waay inaa wax contribute garaysid iyo way kala duwan tahay marka ay dhahdid sooyba baayo intaana haystaa tusaale ahaan arooskeen waxaa ku baxaya 5 maxaa lahaa 1,000 ama 10,000 ku baxaysa I have $8,000 2,000 iigu dar qofku wuxuu ku dhihi karaa xitaa dib baan kaa siinayaa $2,000 adigana qofkan jeebkiisa waa ogtahay yani ma aha qof like lacagtaas keeni karo because waaba ogtahay qofkaas intaas isla sheekaysanaysiin jeebkiisa waxa ku jira waa ogtahay sax laakiin haddii oo uu lacagta uu haysto oo adiga raba haddana dusha inuu kaa saaro markaas oo kale dee waxaa ku gelgeli karo like inaad shakiso waa dhadi waaye ii weydiina lacag wuu haystaa wuu awoodaa waaye
ama qof soo dhici karto inuu yahay gacan adag oo kale uusan rabin lacagta inuu bixiyo oo miisa dan taasoo kale banaanka ka istaagayso ima guursan rabtid ha dan de waa in sida loogu talagalay aad wax igu darsataayo de aad isoo doonataayo arooska aad dhigtaayo wax walba aad samaysaa marka aniga waxay ila tahay mar walbaba xagga 50-50 waxay ku xiran tahay qofka aad la tacaamulayso see waay intee in leeg baa taqaanaa qof ceenkee ah waay qof aaminsan tahay miya marka aan saas isleeyahay Suhayb su'aal kooban ku weydiina ha iyo may uga jawaab okay tusaale asaga ganacsada miyuu ahaa ninka ha iyadana ganacsato ma la isdhihi karaa maadaama idinku waxyaabo kale iyo meelo kale aad ka falanqayseen in gabadhu aragti ah ay ku jirtay in ay soo jiidasho ku samayso oo maaragtay maadaama nin ganacsadaha uu yahay ay ku soo jiidato dadaalkeeda iyo maaragtay hadafkeedana uu ahaa siday ku soo xirigelin lahayd asaga kadibna bahasho ay la xumaatay way dhici kartaa No, but I think hadee ma aragtay hadafkeeda iyada saas ahaan lahaa iyada wax sameyn lahayd she'll have had the plan iyada lahaan lahayd laakiin planka soo weegahay laakiin asaga lahaa yani inuu gabadha guursaday dhahay wax ku soo dar markuu dhahay ku soo dar oo ku dhibaayo biilkii waxa saa sheegtay kadibna 2 bilood ka baxay naagtiisa u sheegin so it's story u socotay laakiin asaga watay the thing and not the girl ani saa u fakiray sida sheegteen inuu noqon kartaa gabadhaas walaashay waxa leeyahay runtii xanuun waaye qof aad xataa adigu adoo gabar ah aad maaragtay aad maal gelisay 2 bil gudaheed haddana inuu kugu xumaado marka maxaan leenahay waa ka xunnahay maaragtay aad baa uga xunnahay xanuunkana waa kula dareemaynaa laakiin mar dambe ha fududaan laakiin sidoo kale aniga waxay ila tahay markaan hadda oo la hadlaayay gabadha kama dareemin lacagta inay ka xun tahay bad lacagta is like anaga ma ogtahay dumaraan hey whatever aan ninka ragga siina waa sheegna like inuu sana kama dareemin laakiin waxaa ka dareemay inay jeclayd oo uu dhaawacay qalbiyan uu dhaawacay يعني وحان دهاية ترى نيدي هذا أنا وعنده حنكو هبارة إله يتوسي سوى يتوقسنا you know لا إله يتوسي سوى يتوقسنا دين أنا وحان ده هبارين دين واسأليه وحان ده of course ودرين كاس دم وأوجهي لكن وحكفي عن إنك أمست because دول مجبريها قفك قالوا بوجسود دقدقة بس إذا هرا معها هدويل كاس كاجر درينها أو كوجس مي متقن طبعا سأيجي شيء يصيدنا ده وقفك واحد قد بي إلهي بابك جازينا you don't need بينها كم يسأل وحان ده هذا قاريس إلهي كب ماركنه دينعيس أقول له صلاة قبضي إلهي ماركن قعمها كروتا قلوب هذا إنه كتر because جعلة أركايا هاي وأنا دريمي كرا قف مركا جعشة is really hard إنها متقنا سدس easy جاه أوقع قاضو like especially when you're married هذانا إسقورستين مركا إسقورستين is another level ويكدوين تاي مركا شو كان سنة إنسان أمرير أيضا سمي سنة مركا هاسلاي ماركت إلهي سبحانه وتعالى but I think 10 كبرت نورش سيدة وحددا نقصو بيرة عبارة يرين اللي جوجا نورش ويكبحايا نورشين بأني وحديه لها as much as 10 كبرتي and don't let that in dictate garayso noloshaada yani ina nimanka dhan saas u maleeynin mise ina ma aragtay cabsidaas of course waa cabsanaysaa qof wax ku dhacay baa tahay and all that but ina la deal garayso that's a traumatic incident ba ahayd qof baa jeclaatay broken baa noqotay waa lagaga baxay betrayed baa dareemay so there's so much emotions sabirka ku jiraan but ma aragtay aniga waxaan dhila you should deal with that face that la deal gare and inshallah marka ka heal garayso si degan ma aragtay ina uga doorato ina another partner in kale ina samaysan ina isxirin geliga incident ku dhacay ha sababta jacaylka kala fursad who knows maybe marka qaar dad aan u malayno oo jeclaan lahayn noloshayna inay ku sii jiraan forever aan isku gabowno yaa oo aan isduugna waxa dhici kartaa in Ilaahay subhanahu wa ta'ala dhinac kale ku wado qof kale ka amazing ah oo ka fiican mataqana oo marka noloshaada uu ku soo biiro and it happens sometimes waxa arkaysaa nin gabar ku furay iyadoo ay furdhin يعني waxay ka samaysaa mataqaano uu qofka yimid wuu ku furay then later on in life waxa dareemaysaa noloshaada Ilaahay inuu soo geliyo qof kaaga fiican adiga ay furdhiya qof kaaga fiican ninkii kala tagtay marka waxaan leeyahay kulli de wixii dhacayba way dhaceen mar walbana waxa la dhahay mataqaana wixii daata daba qabashay leeyihiin waxaan hubaa inay gabadhaas okay noqonayso insha Allah ta'ala ilaahayna ha u booga dhayo ilaahayna waxa uga baryaa aniga Suhayb ahaan in ma arkino wiil fiican oo mataqaana qiimo badan ilaahay inuu ma arkino ku hagaajiyo insha Allah aadi walahi aniga waxaan dhihi lahaa ma aragtay of course ilaahay gabadhaas ma aragtaa ha u fududeeyo
jacayl heartbreak easy ma ahan but ma aragtaa ilaahay la garab galaan all that wiilkaasna wuxuu sameyn lahaa dee waa sameeyaan all that but apart from that sheekada ma aragtaa qabiilka Soomaalida wax walba lagu dhaho lagama dayn karo like it's just deep into their kikale waxaa jiraan aniga waxaan is dhahaa carabta baa waxaa jira dadka qoom la dhaho qoom aan funaaqa aniga waxaan dhihi lahaa qofka ma aragtaa in qiimihiisa la fiiriyo aad iyo aad u muhiim adan qabiilkiisa dad baa waxaa jiraan wuxuu ku faanayaan ani qabiil hebel ba ahay but hada qof miisaan la tahay wax soo saar la tahay wax ku soo dar wax bartay wax hada tahay qabiilka kugu faanaya qof ogeena wuxuu leeyahay qabiil qofkaas ma aragtaa isku qabiil baan nahay qofkaas qiimaha badan exactly so qof walba inuu ku dadaalo Soomaaliya maanta qabiilku ku dadaalaysiin inuu qiimo isgalisiin noloshaada it's not like qof in lagu yeeso because of qabiil or insaan that's not the thing is as much as Somali waxay sameynayaan ku madax adeegayaan all that but individually qof walbaan la hadlayaa it's adiga ina ma aragtay qiimo isku yeesheed hada gabadha siirta oo kale ma aragtay insha Allah ina ma aragtay wax barato ka soo kabsato insha Allah diinta Ilaahay u laawto Ilaahay baradano qalbigaada ku qaboojiyo adkaarta badisid very wax badan bay sameyn kartaa all that wiilku waa dhacdatiis ani kama hadlayo but to the girl insha Allah ina Ilaahay u soo laabatid Ilaahay isku xirtid aan ma aragtay adiga noloshaada si hormarisid aan lesson u qaatid ka sii socotid insha Allah ani inta sariih lahaa isla arintaas ay ka hadlayso Samiire ay la xiriirta dhinaca qabiilka iyo qabyaalada baan si raacaya barnaamijka ama sheekada labaad oo hadda aan hayo Ibrahim ahaan muxuu ahaa ana igu saabsan tahay waxaan maleynayaa markii ugu horeysay oo moogtahay qof asaga barnaamij ku saabsan yahay uu ila joogo inay tahay marka waxaan maleynayaa skorkiga cijibisa wali waa soo raadin doontaa waxaan ula soo diri jiray cod iyo matqaana qoraal kaliya barnaamijkan dadka Sohiba ku xiran iyo Samiiro ma ahan mid ku cusub waad ka sheekayseen muxuu ahaa wuxuu la xiriiray arintii ku saabsanayd maaragtay caafimaadka iyo wiilkii qaliinka galayay and that was me waskan وأنا مليانين إلى إيميلك قصة درتي oh my god وإذن قاعد إيميلك إيميل قرنيسة مركا sheekada macnaha waxa ku dabaqaya Samiiro arinta qabiilka iyo waxaas in aadan qofku uusan qabiil iyo qabyaaladina ku tashan oo naftiisa asaga halkan marka ay mid waxaan u baahday sabab caafimaad darteed qalin yar inaan isku sameeyo dhakhtarka wuxuu igu yiri qalinka uu yar yahay wuxuu qaadanayaa 24 hours inaad ma aragtay joogtid isbitaalka markii qalinka lagu sameeyo habeenka seexatid maalintii waa bixi kartaa buu yiri you know cabsi Soomaaliya haddaan nahay cabsi waxa iska jirta maaragtay faabi ahaan waxaan ugu jira qalin hadii lagu soo xiyo kalida waa maqan tahay beerki waa laga baxa wax maaragtay baa jira sometimes no waxba moogtahay xaqiiqo iska dhici kartaa laakiin ma badnaha marka cabsida noocaas ay gashay marka magaalada Nairobi rag saaxiibadaya oo I don't hadda inaan mission garay muhiim maaha laakiin marka loo hadlo qabiil ahaan marka loo hadlo xiga ilmaadeertaya sida ay u dhigaan hadalka ilmaadeertaya muxuu ahaa baan la hadlayo halka jooga waan aad isugu weynahay saaxiibanahay marka waxaan ku wareede just kama hadlay aniga income macnaha lacag kama hadlay alxamdulillah maartay wixii way dhameystirayeen qarashkaygu waa la baxay wax walba waa diyaar warqadii waa saxiixay just waxa u baahanahay kaliya in qof kaliis iska socdo aan noqonin oo maaragtay ay dareemaan dhaqaatiirtu inay cid ila socoto moogtaa wax walba iska dhici kara oo marada qaliin galiis ha yaraado ha weynaado waa ku tagi kartaa waxba iska dhici kara marka in qof ehel ah ama saaxiib ah ragii dumar wuxuu doona ahaadee baad u baahan tahay واو إبراهيم يوم مسافة قريبة جلسة أوكي وحوي ديار وحول با ما عرفتي وش أسوأ كل قبلنا ما أنت هس وحوي ما كل أسوأ صحدا هبي ما أنتي معناها الصبح جلسة هبين كده وكلا بقول ما كل ما هي حكي ساعات هبي لان كل بينا الصبح هوري أنا وحوي أسوأ نختار كي مو بيجري مركا ويا وحيري نو حواس حواس كل بينا صدق ساعة صبح نمو waxaan iska raacinaa muxuu ahaa PBS Mall kadibna maartay staalkan isku raacinaa okay waaya waa 2 days before marka uu sheegayo laba bari ka hor marka uu sheegayo markii bari oo kale ay tahay ba hadana caaw kale wacay
waxaan ku yiri haye saaxiib waliba labay ahaayeen mid waliba isku xirfad baa ahayn mid kalena dad isku aad isugu dhow baa ahayn saaxiiba ah oo tol ah oo maaragtay inaan hoos ugu sii daadego ha usii dagaadegin marka waxay dhaheen okay berito diyaar waa waqtigii markii la gaaray subaxii hore waa wacaa mid taleefankiisu waa dansan yahay kadib marka laba jeer wacdana uu shitay uu u jeedaa whatsappka fariinteeda uu arkayaa ma kasoo jawaabayo kan kalena sidoo kale fariimahayga waxay waa gaarayaan information almost waxa way update way yihiin oo in waqtigan baxayo way og yihiin marka wacay hal saac bar subaxnimo ilaa 2 saac baan wacay ilaa 3 saac baan wacay soo baqaya ma aadi karo isbitaalka dhakhtarkana 3 saac oo isugaya taa igu cagaaratay waxaan si roreed maxaa samaysaa waxa igu soo dhacay wiil Soomaali sujuuya Samir Soomaali sujuuya daba qosho waxa way ila soo jeesanaysa wiil Soomaali sujuuya waxay xagee baan isku baranay wiilkaas macnaha ma dad aad isku xil dheer baan waa question aad isweydiinaysaan moogta iskuma xil dheerin magaciisa kaliya naqana magaciigu yaqaana xataa wax intaas dheer nothing hi kaliya naga dhaxaysa meesha isku baranay waa gym waa madal dadkoo dhan ay maaragtay wada joogaan oo loo dhan yahay gymka saacadaas gymka aan wada qaadanayno labadaas saac kaliya baan istaanaa waxaan isla keenay gymka sida maaragtay alaabtan boodboodka iyo loo sameeyo halkaas saaxiib ku noqonay laakiin saaxiib ma ahan deeply macnaha saaxiib hoosaad oo wax badan iska fahansanaa ma aha cidaan ahay ma garanayo ciduu yahay ma garanayo laakiin inuu maaragtay deegaankan dadka ku kora inuu yahay waxaan sameeyay ninka odaga ahaa waa baan wacay bas ka wacay telefonka Ibrahim haye ma fiican tahay Sheekh Ibrahim buu igu yeeray marka garweyn hadii la arko mugta sheekha lagu baraa Sheekh Ibrahim haye seeta waxaan ku okay waa niyo waxaan ku xaaladda sajirta uu baxnaa qayb waay xilligan inuu sheegaysaa maxaa mar iisoo update gareyn wayse hadda xagee joogta macnaha waxyaabahan la yaabay waxa weeye Samiiro iyo Suhayb waxyaabahan la yaabay waxa weeye right now xagee joogta xagee kugu imaada xagee hadda kugu imaada markaas waxaan dhahay inuu hadda guriga joogaa BB small aan maaragtay isugu imaan wuxuu yiri no soo ma xanuunsan ana gaariga soo kireenayo ma sha Allah maxaafadaada kugu imaana hadda taa xilligaas meeshan ka soo qaada isbitaalka ku geeyna isagana dhakhtar waaye somehow jaamacad buu dhameeyay maaragtay warin aqoon leh oo runtii maaragtay dhakhtar ah waa soo raacnay guriga igu yimid isaga gaariga soo kireeyay guriga igu yimid isoo kaxeeyay kabacdina wuxuu keenay isbitaalkii waxyaabaha kale xiisaa leh intaas ku ekaanayaaba isdhahayay qaliinkii baan galay alxamdulillah ilaahay waa igu guuleeyay adii 40 minute buu qaatay isbitaalka markaan qaliinkii soo dhameynay oo banaanka la soo saaray oo qolkayga caadiga la geeyay oo dhakhtarku uu yiri this guy inta ka badan uu iswadi karaa suurigiisa uu gali karaa so he's good waxa weeye bari subaxna wala bixi karaa saaxiibkay markaan miirkayga uu soo laabtay good waxa weeye wax dhiba ma dareemayo waa isku filanahay marka waxa ku dhahay waxa marka aniga igu jirta aragti ah ninkan odaga waa dhibaysa macnaha culays baad saaraysaa intaan wax ka badan haddana dareena waxa igu jira iskuma ballaarnidin ninkan oo amaad macnaha wax badan gafinaysa ama culays ku tahay ma fahanti inta haduu ku sameeyaaba wax weyn ah yani waxa isleedahay wax ka badan ha weydiinin marka sheekadooda ku dheereeyay wuxuu yiri Ibraahimow qaliin baa lagu sameeyay caawa waxa weeye intaan aniga meel aan u socdo ma laha supermarket ku tagay cuntii wax uu isoo qaaday alaabi wax baalkii wuxuu ii keenay sometimes waxa jira qofka qaliinka lagu sameeyo cuntooyin aan loo ogolayn nois maaragtay waxyaabo isoo adeegay waxyaabaha interestiga oo kale waxa weeye at that time pocketkayga ama aniga jeebkayga ma isticmaalayo macnaha waxa uu sameynayo uu soo gadayo asaga jeebkiisa isticmaalayo sax waqti waxyaabaha mararka qaar la yaabo la shoogay kamid ahay habeenkaas wuxuu ila joogay guriga isbitaalka habeenkaas waxaan dhahaa marka niyow intaan ka badan waa ku dhibayaa marka wuxuu dhahaa wuxuu igu yiraahdaa waxaan wax isugu sameynayno waa waxay diinteenu nafartay
ما شاء الله waxay diinteenu nafartay waa waana dabeecadahayga dhaqankayga qayb ka mid ah marka anaa ku raaxaysanayo buu yiri inaan qof caawiyo واو caawinta qofka aan caawinayo raaxay ii tahay raaxan ku dareemaa ma fahamtid marka ha isdhibin adiga alcamo ninkii waa is soo raacnay maalintii waa isoo kaxay guriga i keenay maalmo guriga ila joogay saan idin sheegay ها maalmo kalow iisii joogay sometimes xataa meel yaroo cunto lagu kariyo qolkaygu leeyahay sometimes Jikadu cunto galay. karayo waan cunayay aniga ما شاء الله so waxaan isdhahay markaa ma buug baad ku qortaa ninkan sheekadiisa ma meel miyaa ku nood garaysataa markii dambe waxay noqotay inaan qalbigayga aniga ku nood garayo waana meesha ugu muhiimsan oo qof lagu qoro ها dulucda marka sheekada waxa weeye aniga hadda Suhaybo iyo Samiira aniga hadda reer baan ka tirsanahay Ibrahim ahaan reer baa laygu tilmaamaa in aan ka soo jeedo sinjiyadayda inay halkaas ka soo jeedo dhalinyaro ahaan ama oday ahaan intaba waa u dhaxeeyaa marna dhalinyaro waa laygu tilmaamaa marna odaynimadan qaadanaya intaasoo sano oo aan soo jiray baan soo noqday nolol baan soo jiray maaragtay wax badan baan soo sameeyey wax dheeri ah oo ahayn litacaarafuuda oo Allah subxaanahu wa tacaala uu sheegay aan ahayn oo qabiil aan ku qaba ma jirto oo aan ka faa'iido marka waxyaabaha marka aan la yaabo ayaa waxay tahay waayo qof dhalinyaro ah oo maanta u baahan noloshiisa inuu hormariyo dabaq nin siyaasi ah oo dhisto intuu sawir isaga qaado uu dhahayaa dabaqan anaga iska leh isagana waa baahan yahay ma quraacdo ma qadeeyo reerkiisu waa dhiban yihiin hooyadiis waxaa laga yaabaa in ay banaanka caana ku gadayso aabihiis inuu xamaaliyaha laga yaabaa nin islaameed oo siyaasi ah ama ganacsado ah ama whatever he is sidoo gurigan ku keena xataa aynaan ogeyn xalaal miya xaaraan miya aynaan ogeyn inaad sawir isaga qaadid oo aad qabiilka iyo qabyaaladda ku heshiisid wax ay necessary ay tahay anigu ma aaminsanay intaan hadda jiro da'daan hadda jiro intaan la ekahay waxa weeye dadnimadeyda iyo Allah subxaanahu wa tacaala ku soo gaaray reerkayga waxa naga dhaxeeya waa litacaarafu laakiin intaa wax ka badan inaan dad u caayo inaan naftayda aan u duleeyo inaan dad ku dhibaateeyo inaan reerkaan ahay laandheero inaan ahay aan iska dhigo laandheero waxaa noqda nin ilaahay ka baqa ilaahay caabuda shaqaysta jeebkiisu buuxo wax qabsan kara laakiin shiid baa tahay afkaaga uraya tabcaan baa tahay gabar ma guursan kartid nolol ma haysid haddana anaa laandheere baan leedahay xabadka garaacanaysa marka waxaan sheekadaas dhan uga dul leeyahay waxa weeye kuwii aniga dad ii xigay saaxiibaday ahaa maadeeraday ahaa tolkay ahaa waa duseen waxaa ula jeedaa waan waayey waxay isaaciday yar halkaan u dhashay Soomaali sijuuya Soomaali ah Soomaalinimada jecel dadnimada jecel waa sababta diinta jecel waa sababta aan u aaminsanahay marka aniga eedda dadka Soomaali sijuuga mowduuc kale noqon doontaa laakiin eedda dadka Soomaali sijuuga loo soo jeediyay 100% inaysan waxba ka jirin waxa aan ku aadeena ayaa waxay tahay dad dantooda garanaya inay yihiin qofka inuu mana xumataas qofka inuu dantiisa garto oo dantiisa uu garto nin shaqaysanayo uu noqdo is very important waxa weeye laakiin ما يساعده ما يعني هالكان ما يقبطان ضد حاسدين waa dad isla waaweyn ma sheekh dad isla waaweyn dad dantooda gartay waana beecada ay ku nool yihiin waa sax macnaha Nairobi marka laga eego Kenya marka la eego dadka Kenyaanka qof walba dantiisu raacda wiilka 18 sano markuu jiro baxbaa leeyahay sheekh jaamacadda orod iska soo bixi adiga ma garad shaqayso cambuug banaan ku qaybinaya waxa arkaysaa wiil dugsi sare jaamacad wiil dhiganaya waxa arkaysaa banaanka maartay fruit ku gadaya marka weydiiso tira war maxaa ku leeyahay nolosheedan marka waa idinku badiyay waxa weeye Ibrahim wallahi sheeko amazing I didn't know hortina adiga tahay wanu gaada sorry about that maartay wanu gaada exactly I'm really sorry in situation aad uga xuma walaashay sheekada markaan laakiin su'aasha isweydiina Ibrahim waxay maxaa noo soo wici weysa anaka like ani adiga waa isgaranayna xilligaas like hani waa isgaranayna like why mise dumarnimo ay ugu dhaaftay landheero ma ahayn saasa umalayna ma qayb waxay ka noqon kartaa maybe in aan islaha Suhaybo ismaada waxay dadaal kale ku jirtaa orad kale ku jirtaa guriga galida ku jirtaa Allah musta'an konsa igu soo dhacda inay maqantaaba dhici karta laakiin ku weydiiso su'aashaas marka ay sheegtay like maxay soo wici weydaa ku dhahay like maxay igu soo sheegi weysay oo sheekayna asay moogid ya sheekayna asay maya marka sheeko iiga ma sheekin laakiin qiso wuxuu leeyahay macnaha qalin galay like qalin galay marka waxaan ku dhahay maxay igu soo sheegi weyday horta waa xumahay Ibrahim
ibrahim laakiin waxaan ku dhoos dhahaynaa wiilkaas maasha allah qof inuu amazing yahay ilaahay khayr badan allah siiyo bini aadankan isku mid ma aha way kala duwan yihiin sometimes waxaa sheegaysaa dad oo ma arkin oo isku qabiil aati you know the name wax magac weyn oo aad u jeclaa Abu Bakar baa la dhahaa waa Abu Bakar saaxiibka Abu Bakar maasha allah soo meesheeda iyo Samira xakaas oo leeyahay thank you brother waxa way qalbigayga ku taala waa you know markan sheekadiisa soo xasuusto waxaan noqdaa aniga dhan moogtahay anaga emotional noqonay baad iska dhaafay qofka asagoo kala lama helo dadka ninkaas wuxuu qalmaa gabar qiimo badan in la siiyo dadka dhifka inaga sii dhamaanaya Abu Bakar thank you brother wala thank you so much so Samir maxaa iga fiirnay taaganta marka waxa ula jeedaayo Ibrahim wallahi qisa cajiib waa qisadaas ma garanaysaa mararka qaar adiga waxa sheegaysaa qof oo hadda waxa ka sheekaysan cam dadkaasna ehelkaagiin kula dhalan mararka qaar wallahi waxa arkaysaa dad ma taqaana qofka la dhashay ma taqaana aysan caawinaynin like maalin weyd isbitaalaan joognay maama eedadii ay isbitaal ku jirtay isbitaalka ugu tagnay dan wiil baa la keenay waxa la socdaan laba maamo iyo niman dhalinyaro ah wiilka isbitaalka wiil aad u tacbaan u ahaa marka saan la galiyaba emergency la galiyaba dhakhtarku soo baxay wuu dhintay uu dhahay oh my god dan maamadii hadalkeeda anaga marka meesha fadhinaa maamada hadalkeeda wuxuu ahaa away dadkii wiilkayga way dayaceen like waxay ku qeelinaysaa wiilkayga way dayaceen hadda ha imaadaan marka bariiska soo doontaano ha imaadaan bariiska naftiisa ka qayb qaataan lacag soo diraano ha imaadaan ha cunaano yani maamada dhulka isku gacan maamada kala dhaysay ha iyadana يعني waxa ula jeedaa can you imagine maamadaas dareenkeed marka waxaan ka dareemay in dad markano iyaga isaga ma artaqana ehelkiisa ay dayaceen dhibkina ma aragtay loo sheegay wiilka xaaladda markaas ku sugnaa ama wiilka inuu u baahnaa in gargaar loo fidiyo caafimaad laakiin aysan ka qayb qaadan marka waa kula dareemi karaa painkaas nacamti mid kale mar walba horta qofka markuu xanuunsan yahay waa marka ugu baahi badan yahay uu ku baahan yahay yani xanuun qofka haduu ku sheegto ama saaxiibo ahaada ama walaal ahaada ama ehel ahaada like waxaa la rabaa inaa booskiisa istaagtid dareensiisid that you are there for them whatever ay dhahaan dee financial noqoto emotionka ugu sii daran naxni mararka qaar waxaa isdhaha qofka markay tiisa ay timaado xitaa haddii emotionally uu dareemayo inaan waxba laga hakranin like everybody oo isaga markan oo la dhashay ama saaxiib leeyahay ama ehelkiisa ay u istaageen uu dareemayo ani waxaa isdhahayaaba markaas xitaa is okay qofkan haddii laakiin marka aad dareemaysid adigoo mataqaanaa lagu xasday isbitaalka waxa ku tagi lahayd lagu siinin emotion lagu taageerin yani ma xanuunsantaa ilaahay ku caafiyo some people like ilaahay aamin ilaahay ha caafiyo laakiin at the same time waxa u baahan tahay qofka inuu ku dhaho kala fiican ma bariday iyo ma aadan barin you know qof inuu soo maanta idho soo abaysay tahay ma fiican tahay saakay ma soo nabad kacday iyo kala fiican markaadan isoo wicin mar walba niyadaydu waa ku jiraysaa Samir maanta markay soo cadahay soo saaka say ahayd abaayo ma fiicantahay caadi waxaan sheegay qofka soo xanuunsan xitaa like you know Ibrahim ha ii waran abuu seetay ma fiicantahay maxaa ku bar ani Ibrahim waa labada qof oo aad ku hadda waa Samir iyo Ibrahim like waxa ugu horeeyo dhahay is like hay Ibrahim seetay abuu ma fiicantahay caafimaadkaada kabar xaaladda tamaam waay ma okay markaas waxaan u bilaabaa marka labadoodan u bilaabaa sheekada aan rabo markaas inaan u sheego waxa aan rabo waxaan ka wada hadlayno marka waxaan isleeyahay way fiicantahay kala wanaagsan Ibrahim oo kale I think darad maxay ugu tiraada sooyib ima aadan soo wicinay maxaa isleeyahay maxay tir horta ma xasuustay maalin baan ku soo wicin miya okay markaas waa yaabanahay may waxay tiraada waa yaabana adoo maanta isoo wicin saas uu dhahay like maanta isoo wicin waa yaabanahay ugu markaas waxaan ku dhahay abuu waa ku qaleynay noo xoogo waxa isdahay ma arkin oo because waa la qabsaday wuu ila qabsaday ha like Samirna sidoo kale like subax urta hay Samira ibro waajibta miya ka hurdada ka marka waxa ula jeedaa like kala fiican marka waxaan leeyahay hal isku gargaaro qofka markuu xanuunsan yahay siiba wuxuu rabaa ku ahaado qofka haduuba noloshaada ku jiro oo xitaa aad taqaanid is good inaad dhahdid ma taqaanaa see tahay ma fiican tahay xaalkaada ka waran intaas wax weyn waa marka asxaabtaada qayb kamid ah adaa ku watay oo commentiga soo galay maaragtay aniga wiilkaas aniga ma dhahan aniga waa nin dhalinyarada soo galay wuxuu dhahay nin wiilka Ibrahim wiilka ay reer ka sheekeynayaan waa aniga aad baa u qosay yani waa sidii marka dad badan reblay u gal waxay leeyihiin nin goba tahay nin aad wanaagsan baad Abu Bakar iska dhigaya macna
yeah so but there's one this other thing waan gabadha saaxiibana sheekaysanayna qabiilka ku sii maaragtay ku sii xigtaa waxay tiri Soomaalidu waxay tiri tolna ma aha tolna aanna ma aha I was really touched by that waxay tiri tol ma aha because maanta hada isdagaashin waxay dhahday kor qabiilka kor maaragtay let's say adi iyo in adeerka isku dhow isku laf isku jifo wax walba isdaashin bari halkaas ka istaagaadina halkana ka istaagaysa in hebel waa in hebel reer hebel kala istaagaysin isku qaadanaya ha tol ma ahan hadii maanta qof kale wax ku yeelana oo maaragtay yani qabiilkiina ahayn mise Soomaali ahayn ku diba ku soo guuraan tolaan ma aha yani banaan soo istaagaysa Soomaaliya banaan waa taagan marna waxa la in adeerka kugu soo jeesanaya oo reer hebel in hebel waayo ku leeyahay so she was like literally ana waxaan ku soo qaxay dhada sheekada qabiilka Soomaali tolna ma aha tolaan ma literally gaba fiican waay een sheeka wiil iiga sheekeeyay oo aan la yaabay wuxuu igu yiri isagana wiil kale ugu sheekay isaga kuma aysan dhicin wuxuu yiri adu waxay ahayd meelahan ma taqaana xamar banaankeeda ah isaga iyo niman meel isla fadhiyaan yaa gabar soo akmartay marka raggaanu isaga kamid yahayna wiilka wuxuu dhahay waxay haysteen qoryo adiga raggii waxay ka tustay meeshan cidla ahayd gabadhaanaytay inay kufsadaan dhooray ahaayeen inay gabadhan kufsadaan wayba meeshay fadhiyaan ay agmartay wayba ka tustay gabadha ka daba tagaan ha kufsadaan way silciyeen gabadhi way baxday wallahi way iska waxa leedahay iska sii dhadhacday xaafadii u socotay tagtay markay tagtay raggi mid ka mid ah yaa xaafadii yimid gabadhi kufsaday xaafadii ay joogtay uu yimid guess what wuu ogeey gabadha inay joogto ma ogo maxaa sidii leedahay xaafadda sababtu u tagay maxay tahay raal noqon yidhiira family why abtigaad why oh my god like literally abtigaad why walaashiis ka weynaa dhashay laakiin baadiye ka imaaday wiligiis aliis muusan arkin oh my god wiilkii waxaa la yiri wuu qaraamay oo soo cararay Afrikadan oo galay cidi iyo reeri wax dhan wuu gooy nacanta naxdinta uu nahay gabadhii yani markuu guriga saan u soo galay hooyadiisa joogtay xitaa abtigu gabadhii lanu yahay ayeedeedii soo booqanays hooyadiisa guriga joogtay markaas ay dhahdo inkaar Allah ku riday kuwa gabadhii soo sicid dadkan isku soo baxeen isku soo shamuumeen meesha kuwaasaa soo yeelan markaas waxay tiraahdaa laakiin uu kamid ahaa ilaahay kugu dhaarshay bal abtiga qaraankaas ka waran oh my god يعني waxay ila noqotay wax subhanallah يعني arin aad u weyn oo u foolxuma badan oo يعني gabadhaas mustaqbalkeeda can you imagine maanta inay dhahayso abtiga kamid ah dadka mustaqbalkeeda ku ciyaaray waxaan trauma ma dhahan waxay ka qaadaysaa maaragtay trauma waliba xad ka baxsan ninka waxa la yiri wuu cararay oo Afrikadan kale buu galay isagana ibrqaasho kaliya maaha I don't think inuu is forgive gareyn kara sax Samira like kale la wareebo familkiisa macnaha waxaan Georgia laga kari waayay macquul inuu dhowr mar oo kale waxaan soo sameeyay marka in lagu sii xanuunjiyo ha iimuusan sheegay laakiin waxa taala waxay tahay yani qof bini aad ina dibkaas u geysataa horta wax weyn ah kaaga sii daranay qof abti u tahay walaasha macaan dhashay نعمتي like oh my god waxaan su'aasha weydiiyay wiilku waxay aboo sidoo yahay yani like okay muu dareemayaa hadda qofka arimahaas geystay yani way ku adagtay qofka human being caadiga ah sheegaya oo wanaagsan kulli qof wanaagsan isaga way ma dhihi karan haduuba gabar farxumeeyay laakiin qof human being ah inuu dareemo like you know qofka ku fusatay waxa way gabar muslimad ah Soomaali ah teena ma taqaana abti u tahay walaasha ay dhashay haddaan aniga Samira ka xoogo inta badan ana Samira ka hormaray runtii aniga waa ka xoogaa waa iska barak waa iska jeceshaa laakiin la xoogo jeceshaa markii si loo eego aniga waxaan aragtay ahaan inta hadda shaqada ku jirtay horta laabteed aad bay u gubanaysay maxaa yeelay abtigu waxa la dhahaa hooyada naas lahayn marka ninkaas horta muxuu dareemayaa gabadha yarta markuu intuu soo hor istaagay ay farta ku fiiqday kana uu kamid ahaa taas ma ogtahay waxa weeye xanuunkii ugu weynaa oo dusha ka kora ma ogtahay anaan ku dambaaba ma rabo laakiin waxaan isleeyahay waxaan intuu caadaystay oo dhowr jeer intuu sameeyay ka joogna laga waayay markii dambe kan arintan dhinacan in nabad looga dhigay maartay gabadha yarta masaakiinta in maartay uu sida u dhibaateeyo oo uu kufsado waliba abtiga uu yahay xanuunka in la tusay macnaha familka
asagoo kale hadda gabar uu abti u yahay ama gabar uu dhalay oo kale haddii la kufsado xanuunka uu dareemi lahaa isla asaga in la dareensiiyey falkana asaga qoorta loo geliyey oo maaragtay si u dareemo marka dhinaca kalena runtii ma aragtay gabadhaasi marxalad caynkee ah haddii la dhaho nin kale ku kufsaday iyo abtigaayaa ku kufsaday wax kale miisaan culus waa sug diyaaradaha maanta maxaa waaye waa yaabanhe ku soo celi gabadhaas xaalkeeda macnaha xaalka gabadha ay ku sugnaan karto marka la yiraahdo abtigaabaa ku kufsaday iyo marka la yiraahdo nin kale ku guursaday way kala wax tahay kala duwan waa ninkaas uu ii bareeri karaa maaragtay nin garanaya ma aha laakiin abtigay ayaa isagoon ogeyn maaragtay kufsaday waa dhibaato mid kalena meesha ku jirtaa in dadka ma aragtay ay dadka iska bartaan dadka inay dadka iska bartaan alaashaan hadda ninkaasi walaashiis caruurteeda hadduu kala garan lahaa oo maaragtay magacyadooda kala garan lahaa arki lahaa sometimes xataa inta laisku yimaado laisoo xiriirin lahaa mushkiladan ama xanuunkan ma dhacdeen marka waxaan leeyahay waa qiso intaan joogay runtii aad kuwa aan diiwaanka gashan doono oo aad ku xanuun badan weeye walahi aniga tumi maaragtay aniga walahi waxaan qabaa every rapist inay maaragtay kurka laga jaro literally just say like literally any person oo gabar rape gareeya gabar xumeeya inuu punishmentigeeda maro absolutely 100% anigana I agree with you totally 100% ani iyada hadda waxa dawlad amla u hadloonahay wallahi no I agree with you 100% it's not like easy ma ahan qofkanito like no means no literally meel kasta ku qoranta meel kasta laga dhahaa rape easy ma ahan ilaahu ma hata familkaada yahan ilaahu qof wiliga aragtay ilaahu cirka qofka soo dhaca no it's not allowed adigana haddaad if you have those intuition xitaa dhakhtar aad literally because I know some people will be like oh you know maxay sheegaysaa no go to a doctor dhakhtar aad literally haddaa wiligaa samaysay kaa dhacday soomaan ilaahay toobadkeen weyto go to a doctor don't do that again like literally wallahi it's rape is one of the topics that literally it habato and I really feel so bad about gabdhaha masaakiimada that go through it literally waxaa la dhahaa statistically 90% of the girls waxaa la dhahaa attempted rape waaye waa isku daya in la rape gareeyo and 10% that was in back in 2018 hadda ma garanay statistics 10% na are actually raped so literally gabdhaha waxay leeyihiin walaalo adeero abtiyaal waxaas familka dhan everyone should work on protecting their girls boqolkiiba boqol gabdhaha suma the same agal adiga walaasha ilaali adiga is ilaali as much as you can soma arkin there is so many things ma aragtay qofku uu kala kulmo xitaa suu isku arko qof ahaantiisa xitaa noloshiisa dambe wax badan oo halaabaysa when someone goes through rape xitaa attempt xitaa in la isku dayo xitaa markaas kaliya ma aha a lot of things ba qofka noloshiisa dhan baabi'inaysa like literally jiritaankiisa is a human being dhan buu ever ka noqonaya I know wallahi marka please you guys Soomaalida especially aad bay rape-kana u soo badanaysa I don't understand why dad diin lawaan dad ilaahay naqaanaanahay please let's go back to that ilaaha lagu laabto subhanallah like dadkii aad baa loo fogaanaya rape-na it's not normal any day any time with any person absolutely literally masoo gabagabayna qoladii soo weysa soo gabagabay and yani wallahi emotional aan noqday like literally Samira waxay sheegayso waa xaqiiqa like ina qof bini aadan ku xadgudubto noloshiisa dhan baabis I don't understand ma aqaana wax qofka uu rabo inuu saas u sameeyo and particular waxaan leeyahay aniga Soomaalida dhaqankeeda hal laga saaro waxaan la leeyahay gabadha ma taqaana hadii la reeb gareeyo ma garanaysaa odayaal baa ka hadlaaya no odayaal iyo waxaas gabadhan shaqo kuma laho because shakhsiyan qiimaheedii iyo jiritaankeedii iyada qaas ahaan as a human being baad u dhaawacday waa wax aan ka go'in the rest of her life hadii xitaa fiiriya gabadha guursatay xitaa hadhow kama go'ayso waa waxay ku riyoon doonto waa wax ay mari doonto waa wax mar walba ma taqaana qalbigeeda ku jiro every minute of her life marka waxaan leeyahay dadkana ha joojiyaan ma garanaysaa in ma aragtay loo jilciyo dadka arrimahaas geystaan waa in ma taqaana la xiraa maxkamad la soo istaajiyaa diinta sida ina farayso lagula dhaqaaqa waliba hadda aragti kaloo la yaab lahaa hadda la keeno haddaan kugu daro ilmaha yaryarka gabdhaha yaryar waliba 5 jir 6 jir 7 jir hadda waxaa la bilaabay gabadha inta la kufsado
in nafta in la dhaafiyo laga Can you shaqeeyo imagine? si aysan markaa Aysan u hadlin oo isu sheegin. Hadda gabadhii ugu dambeysay yani dhagaxa mararka qaar waxaa isdhehaysaa bahlan ya miyaa hadda dadka gabadhii ugu dambeysay dhagax madaxa looga jijibinayay Ha. oo maaragtay nolol madax dhiig kaga furmay oo nolol iyo geeri iyadoo u dhaxaysa isbitaal la geeyay marka hadda qorshe waxaaba socota ah si aysan ii sheegin nafta aan aan dhaafiyo dhaafiyo because social media yimid waa la sheegaadan waxaa dhici karta in la xiro dadka marka waxaan leeyahay just stop haddii aad rabto gabar guurso يعني naag la'aan ma joogi kartid soomaha guurso si nidaamsan gabadha u doono guurso you don't need gabar yar oo 2 jir 3 jir 4 jir ama xitaa 20 jir 50 jir xitaa ha ahaato ma aqaana wax kuu geyn karaayo oo kugu qasbaaya inaad kufsato I don't understand يعني mararka qaar waxaa isweydiinaya bini aadan ma aha miya xayawaan miya dadkan marka waxaan leeyahay aan kusoo gabagabaynaynaa barnaamijkan insha allahu tacaala please gabdhaha waa dhasheen waa idinla dhasheen waad qabtaan dhibka ka joojiya كل واحد كفصنا إبراهيم ركواي واحد كله واحد كفصنا ملا ركواي just stop والله ولا شيء مدك لنا سوى البقبض أحد أدب وجيسة أدينا ولا جا جونا تسوى بالحقيقة قبض أن أكفصتي أدينا قلت لك الولاشة أما قبض هذا إنساس لو جلايو أما إن أديرتها إن أبتدا قلت لك التاس ama xaaska laga أما حاسكاga whatever you do in this life ولا جا جونا يا تسوى بالحقيقة واي marka asxaabta wixii qisooyina insha Allah taala halkan inoogu soo gudbiya dabcan anagana barnaamijka de sheekada iyo waan falanqaynay adinkana sidaad u aragtaan insha Allah taala commentiga inoogu dhaafa qisada daataysana qaybta waxa igu soo diri kartaan message-ka messenger-ka meeshaas insha Allah taala ama email-keenaba insha Allah taala halkan aynu ku soo qorayno tan iyo kulantada barnaamijka emotional ku jira balse waxaan leeyahay Ibrahim aad u mahadsan yahay si fiican uu barnaamijka noola falanqay Samiiro uma mahad celinaya yani ka ya كما كوايدا واي مركا إن شاء الله تعالى آدي آدم مسنتين أصحابته وحتى لي تصالح القصن هوسي إنه قريب أنت كوريسا السلام عليكم ورحمة الله